waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland laga daafuray mashruuca maamulka iyo maareynta kaasi oo iska kaashanayaan wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale wakaaladda biyaha iyo fiyadhowrka ee dalka Uganda. Mashruucan waxaa maalgelinaya Midowga Yurub waxaana fulinaya hay'adda UN Habitat. Mashruucan oo muddo 3 sano socon doona waxaa ku soo tartamay 250 wakaaladood oo ka mid ah wadamada soo koraya waxaana ku guuleystay 50 wakaaladood oo ay ka mid tahay wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa. Waxaana kulankan iyo ka qabsoomay wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee Somaliland Professor Umar Ali Abdi Bade, maarayaha wakaaladda caasimadda ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday wakaaladda biyaha iyo fiyadhowrka ee dalka Uganda. Ugu horeyn wax kulankaasi ka hadlay Master George Okol oo ka tirsan wakaaladda biyaha iyo fiyadhowrka ee dalka Uganda, waxaana uu maarayaha wakaaladda caasimadda Hargeysa uu ku ammaanay dadaalka uu sameeyay maamul ahaan isagoo dhanka kalena la dhacay hanaanka maamul ee ka dhisan wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa. Waxaana uu sidoo kale soo dhaweeyay mashruucani ay labada wakaaladood ku guuleysteen isla markaasina ay iska kaashan doonaan. National Water and Sewerage Corporation has been engaged to partner with Hargeisa Water Services Agency, where National Water is the lead partner, in other words, the mentor, and the Hargeisa Water Agency will be the beneficiary partner, in this case, the mentee. dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay maarayaha wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa Maxamed Cali Axmed Daarood, waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda uu mashruucan u leeyahay caasimadda iyo guud ahaan qaranka. mashruucan oo ah wasiir mashruuc runtii aad u muhiim ah marka la eegayo marxaladda ay maanta marayso wakaaladda biyaha Hargeysa oo ah wakaaladda runtii sanadihii la soo dhaafay inay isbedel ka sameysay dhinacyada infrastructure-ka ay maamusho haddii ay tahay dhinaca casriyeynta adeegga biyaha oo 4 sano ugu dambeeyay xukuumadda madaxweyne talada haysa runtii kobac badan lagu sameeyay oo runtii infrastructure magaalada la dhigay iminka oo kor u dhaafay 200 kilomitir oo beeba 7 barkadood la dhisay inkastoo qaarkood aan wali dhameystirnayn oo tahay hawl gacanta lagu hayo kobac aynu ka sameeynay dhinaca hantida kale ee wakaaladdu maamusho dhinaca shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa oo isaguna runtii la qalabeeyay iminkana si wanaagsan oo si buuxda u shaqeeya haday noqoto xarunta maareynta biyaha hoose iyo biyo xidheenada oo iyaduna runtii ah cutub amba unit si gaar ah loogu baahnaa wasiir oo inaga taageeri doonta maxaan xagga cilmi baarista la socoshada biyaha hoose kuwa roobka iyo hirgelinta mashaariicda runtii iyaduna runtii infrastructure fara badan gacanta ku haysa wakaaladda biyaha lafteeda oo dhinacii sidii adeegga loo bixin jiray isbedel lagu sameeyay isbedelka lagu sameeyayna uu yahay casriyeynta nidaamka saacadaha oo saacadihii hore aynu ka guurnay loo guuray waxa loo yaqaan smart metering system runtii oo isaguna runtii aha marka laga hadlayo adeegana bixino iyo dakhli ururinta iyo fududeynta shaqada runtii kaalin weyn ka qaadanaysa wasiir marka la eego isbedeladaas oo dhan waxay u baahan yihiin runtii in la casriyeeyo xagga aqoonta iyo cilmiga iyadoo runtii la raacayo khibrad iyo maxaan waayo-aragnimo la soo tijaabiyay marka mashruucan halku soo galay oo halkaas markaan ka hadlayna NWSC amba hay'adda biyaha reer Uganda ee odayaashani ka socdaan waxay magaalada siisaa sidii inoo sheegay George 262 magaalo ay biyo siisaa wana runtii mid kamid ah hay'adaha biyaha ugu waaweyn Afrika amba wakaaladaha biyaha ee Afrika ugu waaweyn bay kamid tahay amba ay ku jirtaa marka mashruucan runtii aha mashruuc ay ku tartameen maxaan hay'ado badan amba wakaalado badan oo kuwa biyaha ka shaqeeya aakhirkiina ay kasoo baxeen 50 wakaaladood ujeedadiisu waxay tahay 2 wakaaladood oo kala khibrad iyo kala operation waaweyn inay wada shaqeeyaan marka NWSC waxay noqonaysaa sidii uu George noo sheegay mid aynu ka faa'iideysanayno Hargeysa Water Agency ama wakaaladda biyaha Hargeysa loo baahan yahay inay ka faa'iideysato xagga tajribooyinka iyo khibradihii iyo marxaladihii ay soo doonayeen iyo processeska iyo aqoonta isticmaalaan amba teknolojiyada casriga ah loo baahnaan lahaa in lagu saleeyo teena si maxaan raahdaa adeeg aynu siina macaamiisha iyo qaabkan u maamulno operationska wakaaladda sidii looga dhigi lahaa mid runtii ka maxaan amina dharsan sidaan hadda u maamulno ka casriyeysan wakaaladdan guud ahaan loo abuuri lahaa marxalad runtii ay ku adkaatay hay'adahan runtii oo kobacaas coda imika ay korayso wakaaladdu sanadii ugu dambeeyay loo sii xoojin lahaa wasiir mashruucan waa mashruuc 3 sano socon doona 3 sano socdo waxay ujeedadiisu tahay aqoon isweydaarsi dhismaha aqoonta iyo xirfadaha wakaaladda biyaha Hargeysa runtii wakaaladda biyaha Hargeysa waxay nasiib u heshay inay ka shaqeeyaan dad badan oo dhalinyaro haween rag runtii qayb ka ah maxaan kobaca wanaagsan
runtii rajada badan ka muuqato ee ka socda wakaalada oo ah dadkii dhalinyarta ahaa ee wadanka koray intii Soomaaliland jirtay waxna ku bartay gudaha iyo dibadda dalkaba taasna waxay noqonaysaa marxaladda iyagoo marka horeba runtii aqoontooda iyo khibradooda ku dhisantay macaamilka badan ee wakaaladu la leedahay saaxiibada Soomaaliland dhinaca horumarka taageera ee mashaariicda waaweyn taageera ay ku jiraan midowga Yurub ayaa mashruucan maalgelinaya midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland Jarmalka mashaariicda dalka ka socota runtii khibrado fara badan oo aan heli lahayn ay runtii ka heleen haddana tan waxay keenaysaa in loo guuro marxalad taa ka sii sareysa gabagabadii Professor Cumar Cali Cabdi Bade wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa isaguna wuxuu ku dheeraaday muhiimadda mashruucan u leeyahay qaranka isagoo wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa ku ammaanay dadaalka ay sameysay taasi oo mashruucani ku soo guuleysatay xafladan lagu daahfurayo mashruuca kor u qaadista awoodda maamulka iyo maareynta biyaha oo mashruuc ay iska kaashanayaan wakaaladda biyaha Hargeysa iyo wakaaladda biyaha dalka Uganda mashruucaas waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa labada wakaaladood sida ay ugu guuleysteen iyagoo tartan la galay 250 wakaaladood oo kale oo biyo oo ka kala socday wadamada soo koraya arrintaas waxay muujinaysaa Soomaaliland inay tallaabo weyn u qaaday dhanka horumarka awooddeena maamul iyo awooddeena maalineed ama biyaha noqoto ama qaybaha kale muxuu ahaa horumarka inaynu la jaan qaadi karayno wadamadii muddo ka hor inaga hor dhaqaaqay arrinta waxaan ugu mahadcelinayaa midowga Yurub oo mashruucan bixinaya dhaqaalihiisa waxaan mahadcelinayaa hay'adda UNHCR oo mashruuca maamulaysa iyo wakaaladda biyaha ee dalka Uganda oo ah wakaalad aynu aaminsanahay inay inaga horeyso marka laga hadlayo maamulka iyo maareynta tayeynta iyo muxuu ahaa qaybinta biyaha waa mashruuc aan aaminsanahay inuu Soomaaliland faa'iido badan ku heli doono sababtoo khibrad wadaagga ka muhiimsan tababarka laba qof iyo saddex qof ay u tagaan wadan shisheeye laakiin hadda waxay muujinaysaa isdhexgal ka dhaxaynaya labada wakaaladood oo diraasad bundeer lagu sameynayo nidaamka biyaha aynu u maamulno biyaha Hargeysa sidoo magaalo koraysa oo inay aad u magaaloobayso cidna marka kama jiro waxaan maalin qiyaastii u dambeysay 1 milyan iyo 200 kun bay socota qodobka labaad ee isbedelka cimilada wuxuu keenay in biyo yaraan ay ku timaado dhammaan wadamo badan adduunka kamid ah qodobka saddexaad waxaad ogtahay inay jirto arrintii la oran jiray in biyaha loo isticmaalayo waxaan ahayn cabitaan kaliya horumarka dhismaha loo isticmaalaa beeraha loo isticmaalaa iyo ujeedooyin aad u kala duwan oo badan imika Hargeysa gudaheega waxaanu u soconaa mirdhooyin dadka qaar guryahooda ku sameeysan barkadihii lagu dibaalinay soo ma dhaqaaliga koray marka isticmaalka saaro xaddigii biyaha ee qofka helay magaalada jooga arrimahaas hadaba si looga baxo waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa wakaaladda biyuhu arrintan kama fadhiisan muddada u dambeysay waxaynu arkaynay inay ku jireen fidintii biyaha waxaan isla malaha qaybta kaliya dadku arkaan jeexaysa in la hubiyo in laga helo meel joogta horta la helo labo in deegaanka ku xeeran halka biyaha laga helayo la hagaajo si muxuu ahaa biyo nadiif ah loo helo in kor loo qaado tayada biyaha laftooda oo taadka lisaan cilmi baaristii iyo muxuu ahaa in la ogaado biyaha ugu fiican ee dadka la siin karo waxa kale ku jira in kor loo qaado wax bedel lagu sameeyo nidaamka maamulkaana ka muhiimsan wax walba adduunyada horumartayna waxa imika la isku raacay inagu waxaan ku degdegnaa dhismaha kaabayaasha laakiin mararka qaar waxa muhiim ah in la sameeyo horta nidaamkii maamulka iyo aqoontii iyo xirfadii kuwaasaa inta badan ka dhiga sustainable ama wax waarayo soconaya taana waxaan aad ugu mahadcelinayaa wakaaladda inay ku howlaneyd keliya inaanay biyuun soo wadin iyo beeb la dhigay laakiin dhinaca kale ay ka wado in kor loo qaado arrimaha laga hadlayay aad ko badan ay ugu horeyso kow biyo gaarsiintii labo hagaajintii ishii biyaha saddex isbedel lagu sameeyo deegaankii afar arrinta ugu muhiimsan ee maqalaya waxa weeye equity sinaantii in qof kasta oo muwaadinihi heerka soo dhaqaalihiisu yahay uu heli karo biyo nadiif ah xilli walba arrintaas markaa culays badan bay saaraysaa waana arrin qaran oo run ahaantii waxay ka mid tahay biyuhu mudnaanaha ugu horeeya ee xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweyne muuse bixi cabdi xoogga la saaray intii talada haysay
gabagabadii kontonka wakaaladood ee ku guuleystay mashruucani laba kasta oo ka mid ah waxay u wada shaqayn doonaan gaaro waxaana wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa ku soo hagaagtay oo ay mashruucan iska kaashan doonaan wakaaladda biyaha iyo fayadhowrka ee dalka Uganda. Cali Qamaacir, telefishinka Kalson, Hargeysa.